أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم sidii aan horeyba u sheegnay oo aan bulshada gobolkan ku abtirsata ama bulshada Puntland guda iyo dabadba ha joogtay aan horey ugu sheegnay oo meediyaha uga sheegnay mar kale baan waxaan ku soo celinaynaa ama maaragtay rabnaa inaanu mar walba la socodsiino xaaladdu meesha ay marayso in shaqadii socoto si dhab ana ay u bilaabatay mar labaad iyo mar koobaadba waxaan ku celinaynaa shaqadaas inay si fiican u socoto sidii loogu talagalayna u bilaabato ilaahay idankiisna yoolka aan leenahay inaan gaaro wadada isku xirta gaalkacyo bursaalax iyo galdogob insha Allah inaan dhamaystiro hadafkayaga iyo ujeedadayada dhabta ah waa midaas mar walbana waxaanu rabnaa insha Allah inaan la socodsiino xaaladdu meesha ay marayso si hawshaas oo ku socota isku tashi iyo codsigii madaxweynaha Puntland laga codsaday qalabka hay'adda wadooyinka neesho isaguna uu ka jawaabay innakoo iyadana uga mahad celinayna qalabkii waa u jeedaan shaqadiiba wadaa bulshadiina waxay bilowday isku tashigii waxaan aad ugu mahad celinaynaa madaxweynaha Puntland iyo jawaabidii uu ka jawaabay codsigii gudoomiyaha gobolka iyo isimada iyo bulshaweynta oo ka codsatay wadadaas oo culays badan ka jiro in wax laga qabto oo la hagaajiyo runtiina muhiimad ballaaran u leh gobolka Itoobiya iyo gobolka Mudug ama Puntland iyo degmooyinka Saaxo iyo Galdogob iyo Bursaalax wadadaas oo isku xirta iyo koonfurta Soomaaliya iyo waqooyiga Soomaaliya wadadaas oo wadada ugu boobala badan geeyiga kan insha Allah aanu rajaynayno dekada iyo Itoobiya iyo gobolka Mudug iyo Puntland inay dhammaan isku xirmaan dhaqdhaqaaqa iyo isu socodka iyo ganacsigana muhiimad ballaaran u leh waxaan hadalkayga ku soo gabagabeynayaa halkaas ay maraysaa qof walba inuu ku tala galo sidii uu uga qayb qaadan lahaa aqoontiisa dhaqaalihiisa waqtigiisa iyo maskaxdiisa qof walba waa loo baahan yahay qof aan loo baahnayna ma jiro ilaahay baa mahadle bacdallaahi waxaan uga mahadnaqaynaa madaxweynaha iyo dawladda codsigii bulshada reer Mudug ilaa degmada Galdogob iyo degmada Bursaalax codsigii dawladda ay u soo jeediyeen oo ahaa wadadan aad loogu dhibtooday oo rafka ah gaalkacyo ilaa Bursaalax ilaa Galdogob inta samaysan maahane inta samaysan iyo bayra inta u dhaxaysa oo aad loogu dhibaatooday codsigii dadweynuhu sida dawladdu uga soo jawaabtay ama madaxweynuhu uga soo jawaabay waa ka mahadnaqaynaa inta kadib waxaan leenahay shaqadii waa bilaabatay waad u jeedaan qalabkii iyo shaqaalihii dharka calaamada gaarka qaba waa shaqaalihii wadada dhisi lahaa waxa lagu xisaabtamayaa oo wadadan loo bilaabay dhaqaale meel u yaala maaha hay'ad samafal fulin mayso dawlad gaar ah oo haatan siinaysa ma jirto waxa weeye dadweynaha reer Mudug oo saddexdan degmo iyo degmooyinka kaleba oo Mudug leedahay dadka gobolka Mudug oo dhammaan waxa weeye baa wadadan jeebkooda iyo tabarucooda iyo sadaqadooda meelaha ugu fiican oo waliba sadaqadu ku baxda ama waalid ha noqoto ama qofka naftiisa ha noqoto waa halka waxaan dadka dibad iyo daakhil iyo gudaha joogaba u jeedinaynaa inay ka qayb qaataan oo si mugle uga qayb qaataan wadada shaqada laga qaban doono insha Allah oo hadda bilaabatay isku tashi weeye nin walibana wuxuu hayaa laga rabaa ninkii aqli ku deeqahayo oo dadaal inta muujiyo dadka ku boorinaya wadada in la sameeyo qofkii jeebkiisa wax ka bixinaya xoolalayda ilaa iyo doollo ilaa iyo Itoobiya dadka degan wadada tan dadka maartay wax kula weeye
wixii xoolo haya oo xoolo nool haya xoolo nool baa laga rabaa wixii lacag haya lacag baa laga rabaa wixii maaragtay xoog haya xoog baa laga rabaa waxaan mahadcelintaydii ka tegey gobarnatorihii baa taagan oo isaguna dadaal badan hawshaan hadda ka qaatay waxaa kaloo taagan isimadii hawsha tan madaxweynaha ugu tegey dadweynaha laftigiisa oo maaragtay isimada daba taagnaa oo lahaa nooga hela dawladda qalabka waxaa taagan raggii qalabka hawsha ku shaqayn lahaa iyaga laftigooda xooggoodana ilaahay ha u barakeeyo waxaan ka sugaynaa iyagana inay shaqo fiican qabtaan marka ugu horeysa waxaan u mahadnaqaynaa dhammaan marka ugu horeysa dawladda Puntland oo macnaha waxa weeye codsigii laga codsaday madaxweynaha inuu wadada wax ka qabto oo u soo diro qalabka aqbalkii uu aqbalay oo waashaas u soo diray aad baan macnaha waxa weeye uga mahadcelinaynaa kuna amaanaynaa insha Allah arrinta geesinimada uu gobolka u bilaabay marka labaad gudoomiyaha gobolka iyo madaxweynaha hadda xilka sii jooga madaxweyne ku-xigeenka labaduba macnaha waxa weeye isku taxalluskii iyo codsigayagii ayaguna ay aqbaleen ayagana waa ku mahadsan yihiin aad baan ugu soo dhaweynaynaa siday noo xushmeeyeen nooguna ogolaadeen hawshaas inay bilaabanto sidaa imaamku sheegay intaa ka bacdi hawshaasi waxaan rabnaa insha Allah hadaaliyada wadada isku xiraysa Bursaalax iyo Galdogob iyo Gaalkacay wadada isku xiraysa oo dhibaato badan shacabka ka maro oo raf ka maro wadadaasna ay tahay halbowlaha Puntland ay tahay la dhihi karo macnaha waxa weeye ilaa Ethiopia ilaa iyo Boosaaso isku xiri kadha ilaa iyo macnaha waxa weeye Garaacad isku xiri kadha ay tahay ay u baahan tahay wadadaasi dayactir buuxa marka ka gobolka ahaan gobolka Mudug sidii imaamku sheegay dhammaan in loo istaago oo macnaha waxa weeye qofkii lacag bixinayay qofkii neef bixinayay iyo qofkii macnaha waxa weeye kaga qayb galay xooggiisaba inuu macnaha waxa uu istaago dawladuna ay ogaato wixii ay ku taabeyn karo tala iyo tacaba ay garab istaagto si loogu guuleysto dalku kaabayaasha dhaqaalaha kama maarmo waxay ka mid tahay meesha kaabayaasha dhaqaalaha ka mid tahay dekadaha la mid tahay macnaha waxa weeye insha Allah hadaalay marka waxaan leenahay waa u mahadcelinaynaa mar labaad madaxweynahayaasha insha Allah hadaalay iyo gudoomiyaha gobolka labadaba marka waxaan leenahay hawshaasi waa bilaabatay ha loo wada istaago insha Allah hadaalay sidaan aan wadno wabillahi tawfiiq waxaan ku dardaarayaa oo ku darahayaa dadka reer Puntland ama Soomaaliyeed oo halkan fiirsanaya hawsha waxa la rabaa si rasmi ah u bilaabatay cid walba inay ka soo qayb gasho talo iyo maal iyo naf iyo muruq inay uga soo qayb gasho yaa la rabaa qolada shaqaalaha iyo shirkadda Nation waxa laga rabaa haddii halmaalin bay ceel joogtaa iyo dadkiinii weeye waa gurigiinii waxaad u qabsanaysaan waa naftiinii waxa la rabaa si taxadar inaad wax u qabataan dawladdana waxaanu ka sii codsanaynaa kaalintii ku aadaneed way qabatay laakiin wali hawshii meeshii u taala inay wax ka soo gasho contributionka ilaa hawshaas u dhamaatana ay ka qayb qaadato wadanka ayada dawladu ah qalab baankeenna kaliya kuma filla dhaqaalaha looga baahan yahay tala looga baahan yahay boorin baa looga baahan yahay dawladana caqligeeda iyo tabarteeda laga maarmay mar inay ka dhex bixin baa la rabaa innaguna xoolihii waa haynaa waxa la rabaa inaynu isku tashado miyigii xoolo in laga keeno magaaladii dhaqaalihii in laga keeno dibadii daaqil in la isku qaybsado wax yar weeye waynuna ku filannahay aynu isku tashano wixii la bilaabo oo khayraadu way iska dhamaadaan dadka muslimiinta Ilaahay waa u fududeeyaa ina ka caajisin jeeraynu yoolka aynu leenahay aynu gaarno bismillaahir rahmaanir rahiim mahadcelinta loo mahadceliyay madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo hay'adda Nation waxaan la qabaa intii hore waxaan sidoo kale u mahadcelinaynaa asaasayaashii fikradda oo dabcan haddaan fikir ku iman xoog ma yimaadeen fikirkan xooga ka qiimo badan oo hormuudka u yahay Xuseen Aadan Seed Sabantar Cadde aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa mar walbana waa u mahadcelinaynaa dadku iyo dalkuna way xasuusan doonaan fikirka saliimku aad la timaadeen in wadada tani ay maantay ay bilowdo shaqadii dadweynaha reer Puntland mashaariicda horumarintu waa ka dhaxaysa baaqaygu aniga mudug kuma socdo wadooyinka la qabtay iyo wixii Puntland ka dhacay iyo disasterkii iyo tsunamidii iyo meel kasta bulshada reer Puntland uma kala haraan wadadaana waxay ka mid tahay wadooyinka Puntland ku soo kordhinaya
horumarka iyo dhaqaalaha oo waa waddo halbowlaha isku xiraysa gaalkacyo iyo xuduudda Itoobiya ama ha ka gaarto dhinacan iyo Tuurdibi ama ha gaarto dhinacan iyo Fooci Cadde dhinaca rabta ha noqotee xuduuddaas wixii jira wadadana baahi tiraysa oo dadka jira waana il dhaqaale oo weyn oo laba kastamka weyn oo Tuurdibi iyo kastamka yar oo Dar es Salaam ay ku yaalaan waxaan rabnaa marka dadka reer Puntland dhammaantood inay u guntaan wadadan waa 100 kilomitir siday noola dhisi lahaayeen oo tiimkan fakarka keenay oo fakarka quruxda badan keenay isku halayntoodu idinkay ahayd gobol gaar ma ahayn marka waxaan rabnaa inaad dhammaantiin adu istaagtaan oo u qalab qaadataan wadadii waa bilownay kharashkeedii waa ururinay ka gobol ahaan qalabkii waa haysanaa dhammaantiis wax naga dhimani ma jiraan bilowgii waa socotaa hadda markay ugu yaraan 2 kilomitir bay soo socoto la soo carra qaaday waxaan rajaynaynaa wadada anagu kaga tagi mayno jay inaan laami ka dhigno oo markay jaygu noo dhamaado kadib waxaan u samaynaynaa ururintii laamiga iyo magaceediga wadadan ka tagi mayno waxaan rabnaa muddo yar inay qaadato oo wadada aan wax badan qaadan maxaan ku iraahdaa jaygeeda iyo inta la falahayo waxaan rabnaa marka dadka reer Puntland wada kasta iyo mashruuc kasta ay qabanayaan waa u midaysnaayeen midaana wadooyinka Puntland bay kamid tahay reer mudug gaar uma leh dhammaantiin waxaan rabnaa jaaliyadaha banaanka oo ugu qiimaha badan Puntland ugu fadhiya shaqooyinka badan soo qabtay aan uga abaalhayno waxyaabihii badnaayo ay dadkan la soo qabteen iyo gacan qabashadii 30 sano la soo dhaafay qurba joogto lagu tiirsanaa inaad maantay jaaliyadihii qiimaha badnaa oo reer Ingiriis iyo reer Mareykan iyo reer Yurubta kaleeto oo Scandinavianka joogtay oo horumarka u kici jiray maanta laga bilaabo oo November 3deedii ah inaad bilowdaan gudiyadiinni iyo abaabulkiinni oo aad u jahaysaan aqligiina iyo maskaxdiina iyo waxqabadkiinaba sanadkan 2020 dhamaadkiisa 2021 inaad u jahaysaan wadada gaalkacyo iyo xuduudda Itoobiya oo 100 kilomitir 100 kilomitir wadada aan nala dhistaan baan rabnaa oo aad u istaagtaan aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa in alla intii loo mahadceliyay iyo intii hawshan soo qabatay waa mahadsantihiin